السلام عليكم أخيرتي وإذن سلامه وإسماعيل أبو زيد. ما أنتوا حارب إنا وحير إنك جشيء نينك اللي يراهدو عبد النور إفتن أو السيد الصومالي ذا أما أيامها تيك توك اللي قانو صومالي كاوبوي نينكاس أو من مدة أهبا كفا إذا يستي إن أو كسو عن بحو عايدة أما أفلقادين تدتك الصوماليات جارهان دتكو ذا community leaders كأما سدتك واحتركوا community إن مدة وحوصا ما يعني كان محية فرسمة بدلشو ميل مركي لغو برتو oo laga daba imaado oo runta ka daba timaado uu ka gambistaa meel kale ama sidad cusub oo markaas aanan markaas isaga aqoonin ayuu si cusub isku baraa waa dadka sameeyo waxa la dhaho reinventing waxa cusub iyo macnaha braankiisa ama si qofku uu yahay mar walbaba meeshii uu joogo iyo waxa ka gadmaaya dadkaas oo ka gadaa waa qaab sida salesman ama marketing ama si iibgeyn amal u shaqeynayso waxa uu sameeyay ayaan rabaa horta intaan idin sheegin maxaa ibaray intaan isku aragnay yaa ibaray maxaan ka aqaanaa aniga shakhsiyan waxaan deganaa gobolka Maine muddo 10 sano ah Maine waa wuxuu ku yaalaa bariga ama se waqooyi bariga dalka Mareykanka ku yaala waa meeshan dugsiga sare uga baxay jaamacad uga baxay muddo badan asxaab badan ku leeyahay masaajidada meeshaas joogo aan ku xirnaa community-ga aan si fiican u aqaano wuxuu sameeyay ninkan marka waago yimid aniga toos misku baranin waa waqtigan ka tagay ama se ka guuray gobolkaas oo meel kale u guuray ayuu wuxuu ka bilaabay meeshaas asagoo cusub oo wadanka ku cusub ayuu wuxuu la degay niman dhalinyaro ah oo soo dhaweeyay runtii oo uu la ahaa waxa loo yaqaan roommate ama se qof guri wadaag la ah isla ragaas ayagoo la degan oo ama soo la degan yahay ayuu bilaabay inuu qoro buugaan horta loo yaqaan Call Me American ama se iigu wac Mareykan buugaas dabcan marka aragtid ciwaanka waxa laga yaabaa qofkan qof iska yimid wadanka oo muddo badan buufis hayay oo iska caadi waa waxaas waa wax caadi ah dib ma laha taas magaca iyo ciwaanka qasab ma aha muhiimadiisa laakiin buugaas markii uu qoray wuxuu ku qoray waxyaabo aad iyo aad looga yaqyaqsoodo oo ka bilowda dadkii soo dhaweeyay inuu been ka sheego oo dhahayo luqadda Ingiriiska ma yaqaanaan wadanka lama aysan qabsanin maxaa la yiraahdaa kaliya waxay ka shaqeyn karaan Walmart maxay ahaatay Sunway waa radical maxay ahaatay music ma dhageysan karaan oo waxay dhageystaan wax la yiraahdo nashiid macnaha asagoo hoos u dhig amal community-ga ama se waxyaabo caadiga oo xitaa diinta xitaa oo la faraha gashanayo oo sameeyay sidoo kale community-ga iyo dadka masaajidka jooga iyo wixii kulay tabo markaas laga sheegi jiro muslimiinta lagu xaman jiro ama se beenta oo idaacadaha iyo meediyaha isla dhaxmari jireen wax u eg oo u maleysid inuu asaga inta dad kala soo qoreen buugaas asaga magaciisa la dul saartay amal ayuu u hadlay xilligaas aad ayaan dadku uga digay in fact waxaan baxay maraan meeshaas gobolkaas inaan tagay aan raggii oo la deganaa oo u beenta ka sheegay qaarkood yihiin dad athletes dad ordo oo maxay ahaatay jaamacada oo scholarship ka haysto qaarkood yihiin dad ilaa PhD qaato waxbarashada magacyadooda mar rab inaan sheego maadaama uu soo ugu gafay oo community-ga laga yaqaan oo dad horseed u ah community-ga yihiin oo dadka ama sabahada waxbarashada ku jiraan ama sabahada siyaabaha kale oo ganacsiyada iyo dad si fiican maxay ahaatay wadanka ula qabsaday oo asaga ku soo dhaweeyay inuu horta saas u galay sideedana qof markii uu abaal lahayn dad kale ma u naxariisto ha ahaatee waxaas xitaa haduu sameyn lahay oo maxay ahaatay oo intaas ku harsan lahay intaas ku koobnaan lahay wax bay ahaan lahayd gobolkii waa lagu kacay dabcan xitaa gabar oo shukaansaday oo aabaheed iyo familygooda iyo afaarahaas oo buuga ku qoray waxyaabaha ku qoran buugaas daa aragtid waxa is leedahay dadka ma aqriyaan miya ama cinwaanka bas ay arkeen ilaa iyo waxaan ku arkay xitaa meel Soomaaliya ku yaala ayaan buuga ku arkay waxaas dhahay dadka ma dabcan ma aqrinin dhowr jabtar waxa ku jirto hadaa aqrisid madaxa aad qabsanaysid laakiin waxay ahaataba ka gudub buuga wuxuu sameeyay marka gobolkii Maine oo deganaa waa lagu kacay wuxuu sameeyaa marka asiga uu ka tagay marmar uu si dhumaalaysi ku soo noqdaa meel uu degan yahay Ilaahay og mar Vermont laga sheegaa marba gobol laga sheegaa laakiin se wuxuu sameeyaa asiga haddana dadka cusub hadda wuxuu la camirtay TikTok oo u kala qaraxday dadka Soomaali darbi ka soo booday kuwa soo socdo ayuu wuxuu isaga dhigaa nin expert ah ama se aad u yaqaano
waxyaabaha ku saabsan immigrationka ama se soo galootinimada Mareykanka tig wuxuu ka hadlayaa lotteryga wuxuu ka hadlayaa wax walba oo immigration ku saabsan mowduucuusan taabanaynin malaha waxyaabahaas oo dhanna wuxuu soo baawsaday inta badan wax aan xaqiiqada runta ee aan sal ku lahayn waay maxaa yeelay ma aha qof expert ah ama si fiican waxaas u soo dhuuxe ee waa qof wax buunbuuniyo waa qof inta haaf wax soo akhriyo sida oo buugaba been ugu sheegay oo Soomaaliya waxyaabo ka dhacay iyo waxyaabo aan ka dhicin dan isku wada dul saaray oo u maleysid waxyaabaha qaar sponsorka lagu soo mari jiray eedadaya aniga la xoogay iyo adeerkaysan lagu macnaha wax qaas way ka jiraan dabcan dhibaatooyin way ka dhaceen dalka laakiin se waxaas oo kale wax oo maxay ahayd inta banaanka la soo dhigo community-gan aan aragtay oo xitaa dadkan oo dhahayaan eeyay cunaan maxay ahayd mukulaale cunaan oo lagu soo caayna dadka soo galootiga in caayahaas ama dadka waxaas isticmaali karo inuu siiyo waxay ideyooyin ama fikrado ay nagu caayin karaan ayadoo taas tahay oo markuu Soomaaliga ku hadlaayeen oo af macaan dadka Soomaalida kula hadlaaya dadkaas masaakiinta Soomaalida macluumaadka soo bixitaanka iyo buufiska haayo oo raba inuu ka faa'iideysto oo been u sheego oo asagoo markaas ku indhasar caadinayo in oo tago gobolka Maine meelaha baadiyaha oo ciida oo guryo oosan asaga lahayn dad cadaan leeyihiin inta tagiyo oo fardahooda iyo guryahooda iyo wuxuu isku soo sawiro oo uga dhigaya nin hantidaas iyo waxaas asaga tabcaday anagoo og xitaa buuga oo qoray xitaa qaabka contractiga loo siiyay inaysan ahayn buuga asiga lacagtiisa ma u soo dhacdo wuxuu ka yahay meeshii la rabo buugaas oo loo iibgeynayo loo tagaaho ka hadlaa asagana hal lacag oo go'an oo waa hore dhamaatay la siiyay that's why uu uga shaqeeyo waxyaabo kale oo uga qaraabto laakiinse Soomaalida ma ogaan waxay u maleeyaan dad fara badan waxay u maleeyaan ninkan nin horumar caadi weyn gaaray aniga ma ka xumaan lahayn qof kasta oo bini aadan oo muslim ama gaal wuxuu ahaadaba oo horumar sameeysto الله أفضل أن ينديه لها لكن سمرك وقف كرب إنه كسر عم بحضرت كلام مساكين أخياره وأيجا أنا ده السوشيال ميديا استعمال آذن آد وهين وضد أخياره وحق جل اسكت ضيق حتى عنك إنه مرة أورجن يمد أن سود ويون اسكت ضيق إن أنا بلحظ له وأنا عربتي أنت تجي هوتيل كوكسود دق وقتجي أنا كده ورنيه وحيد عدعانه بل أرنتان نجح لي هكوسي صعنين أو مالين كصدقك يا قمرية عبان وحس ضدك ويع أو عينايو aflagaadadaas marka loo dul qaadan waayo ayaa Ilaahay wuxuu keenay dad kale oo asagana Ilaahay inuu ku sallido oo asaga ay baaritaan ku soo sameeyaan ee asaga wuxuu yahay wixii ahaanba ku sheegaan ayaa marka waxa dhacday waxay danta qasabtay marka inaan idin soo sheego waxa runta ah iyo Cabdinuur Iftiin iyo wax uu yahay Cabdinuur Iftiin ama Soomaali Cowboy ninka isku magacaabay waadna arki doontiin buugaasna meel kala dheer ba aadina buugaas meel kasto yaala aqriya buugaas waa idin baryaaya aniga waxaan sheegaa hadii been tahay adinka yaabi doono oo madaxa qabsan doona buugiisa aqriya call me American oo dhaho luqadii rabtaba ha ku qornaatay ama Soomaali ama Ingiriis aqriya bal buugaas wax qof caadi oo macquul ah oo horumar rabo ama se community-giisa ka damqanayo wax oo qori kar ma tahay bal adiga taas fiiri adigoona buuga aqrinin ama si fiican u soo baarin ama se gobolka Maine meeshii oo ninkan ku yimid Mareykanka ka soo galay community-ga ama masaajidka imaamiyada masaajidka ee dadka wax barashada akhyaarta hooyooyin aabooyin kulli maxay isku wada raaceen in oo ninkan yahay nin beenaale ah oo fraud ah oo dadka rabo in oo dadka magacooda ka ganacsada iyo sumcadooda waana waxyaabaha la isku keenay in defamation wax la dhahayaa jiro oo hadhowtii dacwooyin lagu soo oogi karo laakiin dadkaas way ka xishoonayaan aniga runta u sheegay waxba igama qaadi karo qof public ayaa ahay already wixii yaqaanaan iguma suubi kara ataaga noocaas oo kale oo ayaga ku suubin karo marka sidaas awgeed fadlan videogan meel dheer gaarsii aniga ma aha inaan ku caan baxayo of course qofkii yaqaana waxaan rabaa bas dadka noocaas oo kale beenayaalayaasha oo rabaan in ummadda kala gadaan ka ganacsadaan in ayagana meel lagu soo xiro oo biri ka maalin aanan la abaalmarinin oo runta loo sheego oo la celiyo waan ku dheeraaday videoga fadlan fiiriya ma jecel inaan qof bini aadan ku dheeraado laakiin dhowr sano waayo waxay ku dhowdahay 7 sano meelahaas ku dhowdahay xilligii oo bilaabay inuu caayo dad ilaa iyo haddana mausan ka toobad keenin maanta kan caga saaro biri kan caga saaro videoyaasha meesha ugu jiro fiiri dad ayaa lagu fara saaraya dadkaasna waa dad bini aadan waa dad sumcad leh waa dad sharaf leh waa dad shaqaysto waa dad danahooda haysto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh